بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن ومدى الصومالي ميل كستي جوغان وحانكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان روا مركا ينكاها الله عذر كان أدوك كفافي اللو يقانو كورونا فيروس oo saameeyay dalal badan iyo dad badan waxaan ognahay community-da Soomaaliyeed ama jaaliyadaha Soomaaliyeed dibadaha ku nool qaarkood inuu saameeyay qaar kamid ahna ay dhinteen ku dhinteen cudurkan qaar kamid ahna isbitaalada u yaalaan ku dhintay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu siin naxariistiisa jannadiisa eheladoodiina samir iyo iimaan ka siiyo kuwa xanuunsan oo isbitaalada ku jirana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu si degdeg ah uga kiciyo waxaan ugu maqaala ah رئيس وزراء هراء وضع نور عدة إنه هذا وحنوسين هي إسبتال ويا العذر كان إلهي وحنوجر جينا مع وجبرينا إنه عاف ما دق أسيو كو كلاو الصومالي يجون حنوسنا إنه إلهي ككعيو سد خصيه هو كعيو عذر كان وحل حقيقي إنه الصومالي سوق جاري صدق قفنا وكل عي وحن إلهي ورجينا صدق قف إنه إلهي صدق وكعيو waxaan aaminsanahay oo aan rabnaa inaan soo dardaarno ama isfarno kadaba tagiisa waxa ka wanaagsan ka hortagiisa waxa ugu horeeya dadku inay nadaafadda ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan mar walbaba arinta labaad oo looga hortagi karo cudurkan wuxuu yahay in la kala durugsan yahay marka la wada joogo uu jiro space ama distance uu jiro si looga hortago in la isku daarto cudurkan faafa waxyaabaha keena waxa kamid ah marka la isu dhow yahay dadka neeftooda inay isgaarto in la isku qofaco ama la isku intiso marka taas loo baahan yahay dadku inay kala durugsan yihiin oo space jiro tan saddexaad oo muhiimka waxay tahay haddii qofku uu kari karo inuu gurigiisa joogo uusan ka soo bixin hooygiisa ka soo bixin waxyaabaha ugu badan oo la isqaadsiyo waxa way baabuurta la isla soo fuulo iyo meelaha mujtamacu isugu yimaado waxaan kale ka dardaarmayaa dadku inaysan isugu imaan meelaha lagu kulmo ama meelaha bulshada isugu timaado maxaa yeelay meelaha ugu badan oo dadku ay ku kala qaadaan waa isu imaanshaha iyo soo dhawaanshaha waxaan ugu baaqayaa ummadeena meel kasta ay joogaan inaan cududeena isu geeyno awoodeena isu geeyno aan u wada jirno aan u midowno sidii aan uga hortagi lahayn cudurkan faafitaankiisa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan ugu baaqayaa inay raacaan ama u hoggaansamaan awaamirta caafimaad iyo badqabkooda oo ah inay joogaan guryahooda ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan meel kasta ku faafay adduunka inuu ilaahay ummadeena ka badbaadiyo